halo mucjisada ugu dambeysay ayaa dhacday maxaa yeelay aabbaha ayaa isoo wacay wuxuuna igu balameeyey guriga martida loogu talagalay arooskeena ayuu berita ka wada hadlayaa ka waran macquul maahan aniga waan aamini lahay aabbahay siduu ugu ogolaadan haddaba caawa labadeena waa damaashaadeena yaaqa iga daa aniga hadda ayaa masquul ka soo baxay kaali gurigaa kula joogo wariyaa okay turukada aad isku qurxisaan gabdhiina mii sheegi kartaa inaan ogaadaan rabaa dumarka waxay isku qurxiyaan waa sir in la sheegan lama ogola shaambada aad ku qubaysatid waa maxay adiga tayada ka baxay adiga maxaad ku qubaysataa aniga maalintaan ku bartay ilaa iyo maanta jirkayga nerima shaamba ayaan ku qubaystaa ukaadi joog dhaqdhaqaaqin maxaa dhacay soo ma aragtid dhibicda biyaha aad ku qubaystay oo madaxaaga ka soo degaysa si fiican u daawo dhibicdaas biyo ah waxay soo dhex maraysaa labada indhood dhexdooda kadibna sankaagay soo dulmaraya kadib si u soo socoto bishimahaaga ayay ash ku dhehaysaa dhibicdaas biyahana ma istaagayso waxay soo mareen dhuuntaada quruxda badneed markay soo gudubto waxay soo dhex maraysaa wadnahaaga dhinaciisa si ay u soo socoto akhiiranka waxay ku soo dhammaynaysaa xandurtaada dhexdeeda